wuxuu kursi u noqday xaaskiisa kadib markay soo wada booqdeen goob caafimaad sifa ay ula socoto caafimaadkeeda. islaantan ayaa ahayd uur 9 bilood ah. kadibna waxay waayeen meel ay ku fadhiisato sifa ay u sugto dadka ka horeeyo intay dhakhtarka u tagayaan. muddadii intaa dhannayd islaantan waxay ku fadhiday korkiisa. waa qiso cajiib oo ka dhacday dalka China ayna soo bandhigeen booliska dalkaasi. bal nala daawo muuqaalka intaynaan gelin qisadan iyo qaabkay ku dhacday. jirkaagii waxaan ahay laga jaray jixka midanaho hooyo waan ku jecelahay joogitaanka aadmiga jir laga abuuro aan jabaynin baate sida aad muuqaalka ka daawanayseenba ninkan iyo islaantiisu waxay soo galeen goob caafimaad oo dadku ay fadhiyeen sugahayeenna dhakhtarka. balse dhammaan dadka goobtaasi soo galay waxay mashquul ku ahaayeen taleefanadooda. kadib sida idiin muuqatay wuu fadhiistay waxayna kaga fadhiisatay tunka ama dhabarka. kadib maadaama islaantani uur leedahay dumarkuna mar walba ay uurka qaadaan ay dareemaan oon aad u fara badan wuxuu siiyay isagoo fadhiya iyadoo tunka kaga fadhido caagad biyo ah. kadib markuu caagadda biyaha siiyey way cabtay wayna u soo celisay isagoo sidii u fadhiyo. sida muuqaalka idinka muuqato dhammaan dadka meesha fadhiyo waxay mashquul ku yihiin taleefanada. waxaadna arkayseen muuqaalka dhexdiisa ninkan oo geesaha fiirinhayo raadinhayana qof kursi ku caawiyo balse waa uu waayay. dadkii goobta joogay qayb ka mid ah ayaa waxay leeyihiin ninkani ma uusan waayin kursiga oo kuraas baa bannaanayd sida sheekada lagu soo xiganhayo. dhinaca kale dadka goobta fadhiyey ilaa inta islaantani ku fadhiday ma jirin hal qof oo u jixaan oo kursi uga kacay sidaad muuqaalka ka daawanaysanba. waana muuqaal soo jiitay dhammaan bulshada caalamka kadib markay soo dhigtay jariiradda loo yaqaano Daily Mail. haddaba su-aasha meesha taagan ayaa waxay tahay ma samayn lahayd adigu islaanta adoo uura adoo isbitaal soo booqday meel ay fadhiisato markay weydo inay tunkaada ku fadhiisato mise ku qaadi lahayd? su-aasha kale ee isweydiinta leh ayaa waxay tahay ma u malayn lahayd in aabba Soomaaliyeed ama nin Soomaaliyeed uu islaantiisa ama xaaskiisa oo kursi weyday iyadoo uur lahoo culays leh uu ku fadhiisin lahaa tunkiisa? su'aal muhiim oo isweydiin leh. waa dhif iyo naadir in la arko aabba Soomaaliyeed ama si Soomaaliyeed oo islaantiisa oo uur leh intuu kursi waayay tunkiisa ku fadhiisinhayo. bal ee dhaqamadii hore ee aynu ka soo tagnay ragga Soomaaliyeed waxay aad u garaaci jireen dumarkooda iyagoo dhibaato u geysan jiray. isku soo duuduubo muuqaalkan ayaa noqonaya muuqaalkii ugu saameynta badnaa sanadkan sii dhammaan hayo ee 2019. wuxuuna noqon doonaa muuqaalkii soo dhaweyn lahaa sanadka 2020. qisada kale muuqaalkani ku dugan ayaa waxay tahay in naxariistu ay tahay qof walba iyo suu alle subxaanahu wa tacaala qalbigiisa ugu abuuro taas oo ah wax qof walba uu si ka keeni karin balse ilaahay uu qofkani isaga ku abuuray naxariistinta leh. muuqaalkan waxaynu ka baran karnaa in kow la isu isxaanfalo, laba in lala dareemo hooyada Soomaaliyeed culayska ay dareemayso xilliga uurka tahay, saddex in hooyada uurka leh ama qofka xanuunsan adoo meel fadhiyo kana caafimaad badan hadduu ku yimaado ay muhiim tahay in kursiga loo banneeyo looga kaco, afar in aabbaha Soomaaliyeed uu ku xisaabtamo ama qof walba ibn aadan ah oo aabba ah uu ku xisaabtamo islaantan culayska ay qaadayso ilmahan uurkeedu ku jiro in aysan iyadu kaligeed lahayn balse ay wada leeyihiin ay wada dhaleen. sidaas awgeedna la isu isxaafalo wanaag la isu sameeyo. xaqiiqdii muuqaalkan intaan daawanayay waxaa dhalaalay qalbigayga waxaana dareemay naxariis aad u fara badan anigoo dhinaca kalena dareemay murugo aad u xooggan kadib markaan arkay hooyo uur leh oo taagan dhalinyaradii halkaa fadhideen ay wada isticmaalayaan taleefanno.
mar walboon muuqaalkan daawadana qalbigaygu wuxuu ku reebaa murugo aad u xooggan. waxaan idinkula dardaarmahayaa aniga iyo idinkuba xilliyada isbitaalada ama goobaha bulshada iskugu imaatay public aynu joogno dadkayna soo booqan hayee faraha badan in aynu ilaalino xaquuqda ay leeyihiin hooyada uur kale iyo qofka inaga weyn sifo aysan u dhicin tan oo kale. haddaad nagu cusub tahay fadlan subscribe garee sifo aan idinku soo gudbinno muuqaaladan oo kale. waad mahadsantihiin. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.